chapterkii 16 ayaanu maraynaa mawduucanaga iyo halku dhiganagana waa baro af German and conjugation furfurid unregelmäßige and verbka isbedelo verben and faralka isbedelo and unregelmäßige isbedel verben verb presence xaalad hada la joogo marka waxay noqonaysaa and furfurida and verbabka isbedela ee xaaladooda hadda ay tahay ama xaalka la jooga ah and abfahren waxa weeye waa verb intaana siinayna markaan rabno inaan kala furno intaana waxa bacdan labada ka dambaysa iska dhaaf intaana waxa leenahay waa verb okay markay verben waxa leenahay labadaan oo la isku daray abfahren iyo abfliegen iyo kuwa kale soo socda waxay noqonayaan verben okay unregelmäßig waxa loo yaqaanaa verbayaashan hadda aan dhaxda uga jirno waxa loo yaqaanaa unregelmäßig oo ah verbka isbedela ama falalayaasha isbedela okay conjugation ama conjugate waxa loo yaqaanaa furfurida abfahren buu ahaa ficilka ama falka samba loo furfuray marka furfuritaanka la kala furfuro la kala waday waxa loo yaqaanaa furfurid conjugation intaas waa ila fahanteen oo maleynaya aan casharkeena galno abfahren waa safrid safarkan oo safaradu way kala yihiin abfahren safarkan waa safar baabuur ku baxayso ama waxaad ku baxaysaa tareen ama waxaad ku baxaysaa bus ama waxyaabahaas oo kale ama waad baxaysaa sidaa daraadeed ma aha safarkan safar aad hadda kadib aad leedahay waan qorsheynayaa oo berri baan bixi doonaa ama maalin kale aan bixi doonaa ama caawa aan bixi doonaa ma ahan waa wax markaas adigu aad bixayso oo dhaqaaqaysid okay ila soco marka abfahren safrid ich fahre ab du fährst ab sie fährt ab wir fahren ab ihr fahrt ab sie fahren ab waan ka bedelina caawa sida hore macnaha guudan sheegayna inta kalena caadi baan socodsiinayna abfahren waxa weeye safrid ich fahre ab du fährst ab sie fährt ab wir fahren ab ihr fahrt ab sie fahren ab okay inta waan soo qaadanay khiyaaray marna inaan sii sheegno kuwan hadeertaan aad ku qasbantay inaad sii barato dabcan iskuulaadka ku qaadataan inta imaado abfliegen duulitaanka ma aha mid hadda kadib aad rabtay inaad qorsheyso waa mid markaas aad wixii xiranta ood soconayso dhaqaajis inaad duusho bas ayaa kuu dhiman abfliegen duulid waa presence waa xaalad hadda la joogo ich fliege ab du fliegst ab es fliegt ab wir fliegen ab ihr fliegt ab sie fliegen ab abfliegen duulid ich fliege ab du fliegst ab es fliegt ab wir fliegen ab ihr fliegt ab sie fliegen ab waxaan filayaa intaas inaan ka gudbi karno waqtigana waan hayaa oo waqti baan dhowranaynaa khiyaaray abgeben waxa waaye waxaa laga wadaa tegid dabcan hadda sida aan kugu soo sheego u kala furi kartaan umaleynaa inay tahay verb inay tahay unregelmäßig kuwa hoosan inay yihiin conjugate ama conjugation waa la fahansantihiin xaaladaada ay joogna waa presence okay kuwa kale inaad rabo inaad furto oo isu dirto shaqo guri abgeben maxaa laga wadaa macna ahaan tegid waayo kow waa siin way badan yihiin waxaan macnahooda hal baan ka soo qaadanaynaa lama gaari karo macnayaashooda hal ama laba aan ka soo qaadanaynaa ama saddex abgeben waxa waa tegid ama siin ich gebe ab du gibst ab es gibt ab wir geben ab ihr gebt ab sie geben ab mar kale aan ku celiyo abgeben ich gebe ab du gibst ab es gibt ab wir geben ab ihr gebt ab sie geben ab okay intaan aado ila soco abhängen waa macno badan iyaduna hal habaan ka soo qaadanayna oo ku xirnaansho ich hänge ab du hängst ab es hängt ab wir hängen ab ihr hängt ab sie hängen ab abhängen ku xirnaansho ma aha xiritaankii oo la xiraya dadka yaa
xaaladaas waxay ku xiran tahay saas oo kale xirnaanshiyo ku xirnaanshiyo ama qof ku xiran ama waxa la jira xaalad saas oo kale ah waxa la jira xaaladaas waxay ku xiran tahay oo kale abhängen ku xirnaanshiyo ich hänge ab du hängst ab es hängt ab wir hängen ab ihr hängt ab sie hängen ab waan ku gudbi karnaa ayadana saan filayo abheben 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 adaa lagaa rabaa inaad sii fasirid adaa lagaa rabaa inaad macnaha wadada hadaayan aan marnay aad martid oo ahayd inaad tiraahdo maxaa la jira intaad aan kusoo sheegno oo kale inaad kusii sheegtid adaa lagaa rabaa abheben way badan tahay kala bixid ka bixid waxaa waayo maxaa la dhihi jiray way badan tahay dhuumasho waxyaabahaas oo kale iyo waxyaabo badan baa lagu fasiraa marka adiga hal iyo labaan kasoo qaadanaynaa aqoolada culimada aan waxaa waaye oo dalka joogtana insaxaab ay ku dhahayaan ay u kasaaya markii oo dagaalka ka baxayn kale insaxaab kuwa dhalinyarada oo xarfaantan waxay dhahaan gooy camal marka abheben way macno badan tahay ich hebe ab du hebst ab es hebe ab wir heben ab ihr hebet ab sie heben ab okay abheben ka bixid kala bixid ka bixid ich hebe ab du hebst ab es hebe ab wir heben ab ihr hebet ab sie heben ab okay meeshan aadno ablesen aqrin ich lese ab du liest ab es liest ab wir lesen ab ihr leset ab er liest ab sie lesen ab ich lese ab du liest ab es liest ab wir lesen ab ihr leset ab sie lesen ab oo akhrina okay aan hoos sii aadno intaas waa qaybtii feebabka xagga aan uga baxo qaybtana walow feeb laftarkooda ay ka maqnayn balse waxaa jiro waxyaaba badan baan isku dhex wadnaa maadaama ins levelkeena uu yahay wax badan baan isku dhex wadnaa oo ah in dadkii horena ay hore usii dhismaan oo dadkeeni hore aan isa sii dhisno dadka dambo gadaal nooga soo biirayan ay nala dhismaan aysa dhin war dadkan waa tageena ka hara inay dhinacna dhaafta ma rabno luuqadda waan isku wadayna hadduu ilaahay idmo in aan wax hilmaamnana ma rabno wax kastoon soo qaadanay dib bay ayagoo oo maxaa faahfaahsan ka imaan doonaan hadduu iiba idmo bal maanta qaybo kalena waan kusoo darnay waana wadi doonaa hadduu ilaahay idmo qaybo badan waan kusoo dari doona sidayna u dareemin maalinba in yar baan kusoo daraynaa sidayna culays adinkana kugu noqonin maanta marka waxaan baranaynaa laba shay oo kale meeshan waxaa weeye waa dhawaqi baan ku baranaynaa meesha ka hooseysana waxaan ku baranaynaa waxyaabo kale markaan u tagna sheegi doonaa die Aussprache dhawaqa wax lagu dhawaaqo sidii xurufta loogu dhawaaqo oo kale die Aussprache dhawaqa au laut laad xagga ka dhig elta xagga ka dhig out ma noqoto ma noqoto okay loud waxaa cod kor ah kor wax qayla ama cod dad kor u hadlayo kale aus esta xagga ka dhig ma dhahda aus oi Freund khada xagga ka dhig Freund ma tiri okay Freund saaxiib treu intaan labadan inti xagga ka dhig intaan isoo oi ma dhahda haa waa ka soconaynaa waxaan leenahay marka treu macnaheedu waxay tahay waa aamin treu waa qaybtan kala imaanaynaa iyadana oo ah uwe actuel oo macnaheedu yahay hadda xaaladda la taagan yahay hadda eventuel oo ah suurtagal ama laga yaabo frei bilaash lacag la-aan lied maxaa laga wadaa murugo
ka xumaashiyo waxaan u maana haddana e liiba jacayl siiben toddoba stehen istaagid straße wado somaad haddana dan silo dhuuq haddana oo ayadoo gadaal marayso waan ka duwa midda hore gadaal bay maraysaa middan best lebest pest waa taqaanaa waa adiga qofkaas best sama soo faybsaay ma ahayn waynu soo qaadanay best ahaanshiyo best waxaa ta samayna lebest jeceshahay kanoo liiban ahaa markii la jarjaray yaa waxay noqotay lebest qayb ka mida oo ah adiga waxaad jeceshahay du lebest waxaad jeceshahay okay handcuffed qaybta hore waan sheegay dhawaaq bay ahayd qaybtan waxaan usoo qaatay waa qayb aad u muhiim u ah kow markaad rabta xafiis waraaqaha lagu dhiibaayo dad soo barata xataa waraaqaha lagu dhiibaayo haddaad soo baratay ish come aus iyo kuma jiraan waxyaabahaas fohe comest du kuma jirto haddaan hore usoo qaadanay waxyaabaha intaan soo hoosgalayso dhanba waxay tahay madaxda u ah handcuffed oo ah meesha asal aad kasoo joodo asal ahaantaada meesha aad kasoo joodo ayaa handcuffed loo yaqaanaa handcuffed markaan macnaheeda waxaa weeye xafiisyada oo dhan haddaad iskool tagto haddaad tagto maxaa la dhahayay social haddaad tagto wax kastoo noqotaba handcuffed ku qoran waa asal meesha kasoo joodo marka waxaad ku qorqoraysaa wadanka aad ka imaada bes khalaas wadankaada dhag isbitaal meel kasta wax walba ida kaaga xiran tahay marka ereygan hadda kadib saas loo barto handcuffed waa ka imaanshiyo waxaan u yeelan waxay ahayd in meelahaas oo dhan ayadan iska buuxino marka handcuffed waa meeshaad ka imaaday common aus ka imaanshiyo waxaana lagu weydiinayay su-aalna u ah voher marka taas waan ka gudbaynaa haddaad hadda kadib waraaqaha ku aragtaan handcuffed waxaa waayo meesha aad kasoo jeedo waxaad ku qorqortaa Soomaaliya oder Somalisch Sprache dadka wax badan bay isku qaldaan Sprache iyo Sprechen iyo Sprechen bay isku qaldaan waxaan leenahay Sprache waxaa weeye waa afka uu leeyahay wadanka Jarmalka ama af waxaa loo yaqaanaa Sprache af ama luuqad fremd Sprache afka oo maxaan dhahnaa afka qalaad fremd Sprache qalaad afka qalaad afka ajnabiga luuqadaha ajnabiga taas oo kale die tanay wadataa tan waxaa waa dhadig hore aan soo sheegnay dhadig bay wadataa diidaanay wadataa markaan rabno aan jamac ka dhigna ama wadar ka dhigna inta keenana tan oon u niyeysanay ama aan gacanteena kusoo qaadanay kale oo noo ah plural inta dhigayna kadib waxay noqonaysaa die fremd Sprachen oo ah maxaa la dhahaye ii sheeg afaf qalaad bay noqonaysaa waatana marka Sprachen inta xagage die Sprachen tan hadda waxaa xaalad dhadig laakiin hadda waxaan u niyeysanayna inay tahay hadhowti marka aan bedelano intaan geyno inay tahay plural tan intage intana inta soo dhig waxaa leenahay die Sprachen oo ah afaf ama luuqado Sprechen waxaa waa ku hadlid du sprichst waxaad ku hadashay gut si fiican baad u hadashay ein bisschen Deutsch yar oo fiican baad ku hadashay ein bisschen waa yar Deutschna waa afka gutna waa wacan sprichstna ku hadlid okay hoosan aadayna marka personalieren maxaa laga wadaa personalieren waxaa laga wadaa heybtaada ama qofka heyb kala soocida dadka
lab iyo dhadig marka loo kala saarayo ama ka hayb ahaan hell mudane hell mudane waxaan leenahay marka waa labadan soo qabo tan soo qaba there inta keen there hell mudane waxaa soo qabtaa labadan kale inta keen wadar baan ka rabnaa waxay noqonaysaa heeran bay noqonaysaa intana tan tuur diidi noo keen oo plural-ka ahayd dii heeran waxay noqonaysaa mudanayaal hol mudane sama saasaan waxaan uga dhignay plural iyadoo singular ah waana mudane faqaaw aan u imaanay oo dhadiga oo dumar ah dii faqa waa caadi waa sida caadiga xaalad nominative ah soo qaad intan keen inta ku dar faqaawen tan oo plural aan u niyeysanayna inta keen waa marka labaad marka hore waxay ahayd singular marka dambena waxaan ka dhiganaynaa u niyeysanayna inay tahay plural inta noo keen waxaan leenahay dii faqaawen okay hoosaan aadna marka forname waa magaca koobaad sidee magaca koobaad u yahay tusaale haddaan ku siiyo ani waxaa la dhahaa jaamac aabe waxaa la dhahaa aadam awge waxaa la dhahaa bisle jaamac aadam bisle aniga jaamaca wax magacayga markii la dhaho magacaada koobaad magacayga koobaad waa jaamac waa kana forname inta jaamacan ku qoraa okay marka familiar name la dhahay familiar name haddii la dhahay aadam bisle oo isku xiran intaan ku qoraa taasi waxay tahay waxa nagu kalifay iyadoo cid noo dirtay aysan jirin annaga istirna in aan barnaamijkan saana aan usoo diyaarino dadka si ay uga baxaan baahida wixii waa inay daacad kaa yihiin ay kaa go-an tahay familiar name marka waxaa isku daba qoraysaa aabaha iyo aabihiis aabaha iyo awowga magaciisa waa israacinaysaa markaste warqadda markaa qoraysa familiar name ka dhigaysaa fornamahana magacaadi waa goonad u dhigaysaa okay familiar name aan kaaga diga mar kale nakhname haddii aragtidna mar kale aan ku keeni doona hadduu ilahay idmo nakhname haddii aragtidna way noqotaa iyadana familiar name okay daya waxaa waaye naamadana wadato daya familiar name waa wax singular ah intaan ku dar inta waxay noo noqotay familiar name tan intaan tuur waxaa ku dartaa iyo ku dar waxay noqonaya di familiar name okay adresa waxaa waayo waa xaalad dhadig oo ah ciwaanka adreeska qofka halka laga helo bedel aan macnaha ka dhigno wadar tan soo qaad inta keen intaan soo qaad inta keen waxay noqonaysaa adresen tan soo qaad ayadoo anagoo u niyeysanayna inay tahay marka labaad plural inta noo keen di adresen waa isla fahanay halkana waxay ku yara noqonaya marka hell mudane maadaama waqti uu yahayo haddana ku noqonaya hell mudane aan soo sheegay mudane maxaa laga wadaa markaad arkaysa dadkan jarmalka waxay isticmaalaan waxaa la dhaho heer hebel iyo faqaaw hebel maxaa laga wadaa aan kaaga dhaco wax yar heer mudane waddankan markii la joogo qofka oo yara mas-uulka waxaa la dhihi jiray mudane hebel marwuu heblaayo ayaa la dhihi jiray laakiin tan way ka duwan tahay tan waddankan waxay isticmaalaan ninka aabihiis oo kale magaciisu wataa ama awowgiis oo kale wataa dabcan tusaale aabihiis oo kale wataa magaciisa marka tusaale haddaan ku siiya nin baa waxaa la dhahaa John marka ninka la dhaho aan dhehe nin baa waxaa la dhahaa Powell aan ku dhehe Powellkaas waa ina John marka John aa leedahay marka Powell ma dhehaysid magaciisid ma madsiinaysid mudana ma dhehaysid waxaa magaca awowgiis ama magaciisa kale nakhnama ama familiar nameka yaa soo qaadanaysaa kadib waxaa leedahay mudane hebel mudana John oo kale aad baa fahanteen sama ama Powell okay magaciisa familigiisa dambaad ugu yeeraysaa faqaawdana soo hartay faqaaw waa qof dumar waa sax laakiin markaad ii rabtid faqaaw heblaayo markaad ii rabtid naag heblaayo islaan heblaayo maaha macnuhu waxaa waaye iyaduna sida ninka kale mudane ahayd waxay tahay marwe heblaayo oo kale waa marwadan marka haddii aan la qabin oo aysan weligeed guursanin magaca aabaheed iyo familkeeda ku tirsanay waa mid haddii laakiin naagtaas waxaa waaye nin kale la nooshahay oo dalkaana waxaa loogu yeeraa oo dadkan maxaa la dhahay caddaanka oo halkan reer galbeedka ah oo la joogno waxaa loogu yeeraa ay u yaqaanaan in ninka guursaday ama ninka ay wada joogaan aabihiis magaciisa ay qaadatay maadaama isagana uu qaatay ayadana ay qaadato tusaale ninkan waxaa la dhahaa John waa ina Powell waxaa la dhahaa John Powell Powell waa leedahay soo maha aabihiisa ayadana waxaa leedahay faqaaw Powell hadda elefantin oo faqaaw Powell ayada waxaa leedahay ina Powell
adoogaas ninka qaba adoogiisa magaciisa qaadatay ninka qabana wuxuu qaatay magacii adoogiisu qaatay marka asaga mudana la dhahayo waa ina Bawal islaanta marka la dhahayo heblaayo marwo heblaayo waxa waa marwo maxaa la leeyahay waa ila fahanteen oo maleynaya Bawal okay marka waxa loogu yeerayaa faqaaw marka isticmaalaysa magaca naagta ay leedahay ma dhigi kartid marna ma isticmaali kartid waa magacyo ka baxsan inaad isticmaashaa marka intaan tan aan ka gudubno qaybtan kale aan aadno dabcan labadaas waan kala saaraysaa u maleynaa Straße waxa waa wado Straße waa wado die Straße wado jamacaan ka dhigna inta noo kan inta waxaan leenahay Straßen wadooyin tan oo u niyeysanayna marka hore waxay ahayd feminine hadda waxaan u niyeysanayna plural inta noo kan die Straßen wadooyin waa isla fahanay Hausnummer waxa waaye numberka guriga ama tirada guriga jamac nooga dhig ama wadar nooga dhig intaan soo qaad inta noo keen kana noo soo qaad anagoo u niyeysanayna inay tahay plural marka dambe gacanta labaad die Hausnummer maxaa leenahay waa nambarada guriga okay anta imaan hadana Stadt waa magaalo die Stadt waxay isku noqonaysaa xaalad dhadig waa waxaa leenahay marka waxaan rabnaa inaan wadar ka dhigno waxaan noo soo qaadaa marka ugu horeyso labadan dhibic intaan dhigayna aadana dhigayna marka ay bay soo bedelaysaa dhawaqeeda waxaa la dhahaa umlaut labadan dhibic bay noqonaysaa maadaama awal noo ahayd tanna soo qaad inta keen waxay noqonaysaa state noqonaysaa tan soo qaad inta keen ayadan anaga u niyeysanayna inay tahay plural die Stadt way noqonaysaa magaalooyinka awal magaalo ahayd magaalooyinka Postleitzahl waxa waaye waa boostada nambarkeeda nambarada oo boostada nambarkeeda waaye soo qaad nambarka boostada waxaan ka dhigaynaa feminine waaye diidan soo qaad die Postleitzahl waxa waaye waa feminine nambarka boostada ama boostada nambarkii boostada soo qaad jamacaan ka dhigno boostada nambarka inta noo kan iyo inta waxaa leenahay Postleitzahl kan ugu dar die ayadoo u niyeysanayna inay tahay plural die Postleitzahlen okay qaybtan ka gudubno inta imaan hadana land dhul das waa isla fahansanahay das land tan noo soo qaad umlautkan noo soo qaad inta noo keen land ay noqon marka land ay noqoto labadan kale noo soo qaad inta noo keen Länder dadka oo ajnabiga hada oo isticmaala ama meelaha kale ka imaada tan soo qaad marka dhulal waa tan soo qaad inta keen wadamo ama dhulal das Länder malena may tan tuur noo keen noo keen waxaan ka dhiganaa die Länder waxaan ka dhiganaa jamac saas jamac noogu noqonaysaa ama wadar noogu noqonaysaa casharada dambana haduu ilaahay waxyaabo kale aan kusoo qaadan doonaa oo kuwa maanta ka duwan waa walaalkiin jaamac aadan bisle oo barnaamijkan soo jeedinayay fadlan waxaan ka codsanayaa like-ta oo kor ah suulka kor jiro inaad share gareysaan ood ku shubataan ha hilmaamina commentigiina aad buu muhiim noogu yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu